iyo nawaaxigeedaba barnaamijkeena codka Soomaaliyeed maanta waxaanu kaga hadli doonaa dhaqanka iyo luqadda Soomaaliyeed sida ay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed aad u moodid bal inay ka tageen dhinaca luqadda Soomaaliyeed ku soo dhawaada mar kale barnaamijka Abuukar Cawaale iyo Maxamed iyo Zakariya oo igala qayb qaadan doona bal su'aasha ugu horeysa waxay noqon doontaa maxaa keenay in dhalinta Soomaaliyeed ay ka tagaan dhaqankooda iyo luqadda Soomaaliyeed Abuukar waxaan oran karnaa horta bay'ada ama meesha lagu nool yahay ilmaha noloshooda waxay ka qaadataa qayb weyn ilmihii haddii aanay haysan role model ama qof habboon oo ay ku daydaan oo hoggaanka u haya oo waxasan tusaya waxay u badan tahay inay ka raadsadaan cid kale oo ay ku daydaan guriga banaankiisa taasna waxay keenaysaa dhalinyaro kale dhaqamo kale luqadii laga tago marka waxyaalahaas sababa daawadayaasheena telefishinka Universal waxaan dhamaantoodba u sheegi doonaa insha Allah inay barnaamijka ka qayb qaadan karaan hadii goor ayagoo maaragtay inagala soo hadli kara leenka ama numberka ay ka daawanayaan shaashada TV-ga aan u gudubno Maxamed waxaan filayaa in maaragtay aniga iyo adigaba iyo dadka qaarkood waxa muddaa in muddo ah inaan ku kornay dhulkan maaragtay qurbaha ah annagoo luqado kala duwan aanu baranay adiga laftigaaga adoo yar baad maaragtay timid wadamadan marka sidaad u aragtaa maaragtay luqadahan kala duwan la baranayo iyo ilowga iyo dhaqanka laga tagay Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim horta afku waa salka waqti dhaqanka iyo ma garanaysaa iyo wixii la xiriiraba hadan marka su'aashaadii hore hadan dib ugu noqdo ee ahayd yani afkan laga tagay dhibaatada halkay ka imanaysaa laba arrin baa muhiim ah mid waxa weeyaan dhaqanka bulshada ka dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ku nool diasporada waxa la yiraahdaa ama qurbaa iyo dhaqanka ama jawiga mujtamacaad la nooshay waxaana yiraahdaan the wider society marka haddii aynu eegno dhaqanka bulshada Soomaaliyeed waxa dhici karta in some sort of conflict wax la yiraahdo ka dhex dhaco family-ga ama is-afgarawaa la xiriira in afka inay tahay muhiim in afkii hooyo afkeenii Soomaaliga ahaa lagula hadlo caruurtii iyo in laga daayo talabaadna waxa weeyaan dhaqankan iyo oo kala cadaadis ama kaga yimaado bulshadeennii oo dayminka iskuuladii marka caruurtii iskuulkii ay tagaan waliba marka ay aad u yaryaryiin ay primary schoolka ay tagayaan ay la yiraahdo lama qabsanayaan waayo de waxay ku hadlayaan af Soomaali oo marka sanadada hore taana waxba ka jira laakiin waxa la isku hayaa in marka afka kaliya laga hadlayo ama afka Soomaaliga lagala caraya caruurta inuu saameyn ku leeyahay tiyo la qiraayo marka hore in uu ku keeni karo dibdhac laakiin on the long run marka la eego mustaqbalka caruurta waxa la isku raacay in arrinkaasi uu dhibaato u keeni karo waayo afkaagi sidii aanu sheegnay bada afkii waxa weeyaan wuxuu matalayaa ma aha afkii aanu ka hadlaynay Soomaaliga laakiin waxyaalo badan baa ku xidhan oo dhaqankii baa ku xidhan waxaad moodaa sidoo kale in maaragtay maanta guryaha Soomaaliyeed ay caruur aad u yar oo harkaysa 2 sano jir ama 3 sano jir oo qaarkood ba maaragtay luqadihii wadankay joogaan hadba maaragtay ku hadla waxaan bal Zakariya aan siiyo asagana oo maaragtay ka hadlo arinta telefishinka iyo caruurta sida ay wax uga bartaan horta bismillaahir rahmaanir rahiim maateen nabil horta sababta ugu weyn waxa weeyaan caruurta laba macallin bay leeyihiin macallin waa TV-ga macallinna waa waalidka waxaad moodaa marka bulshada hadda inay ku xoog badnaatay macallinkii TV-ga sababta keenaysa marka caruurta inta ugu badan inay ku hadasho afafkan kale ama Ingiriiska ahaada ama wadamada kale Yurub ay ka soo guuraan waxa weeyaan inta badan waxay waqti la qaataan TV-ga marka taasina waxaan u maleynayaa waxa halka ka maqan doorkii aabaha ama doorkii waalidka oo runtii loo baahnaa inuu la sheekaysto caruurta oo runtii luqadii baro oo hatta waqti ku lumiyo oo balsiyo taasaan musleeyahay way keenaysaa sidoo kale waxaa jira waalidiin aad u fara badan oo maaragtay qaarkood caruurtooda kula hadlayo luqadii hadba wadankay joogaan ha noqoto Danish Ingiriis waxa noqotaba caruurtooda ayagoo maaragtay luqadahaas kala duwan kula hadlayo meesha kala hadli lahaayeen intay guriga joogaan luqad Soomaaliyeed Abuukar adiga bal maxaad arintaas ka horan leedahay way dhacdaa arinta aad sheegaysid waxaan u maleynayaa
Soomaaliya wadankeena marka la joogay afka hooyo Soomaaliga waxa loo yiri xigmad badan baa ka jirta hooyada ilmaha afka bari jirtay iyada u heesi jirtay iyada dhabta ku hayn jirtay iyada kolkolin jirtay aabuhu wuxuu ahaan jiray ninka maqan oo isku dayay inuu soo helo carruurta masaariftii laakiin halkan marka la yimaado hooyadii kaliya xataa kama dabaalan karto because TV-gii baa dhinac pressure uga haya environment-gii nursery-gii meelihii kale yaryaraay la geenayay marka waxaa loo baahan yahay team oday iyo habartuba inta isugu tagaan in lagu wado mar walba carruurta af Soomaali lagu hadlo waana jecelnahay inaan daawadayaasheena fikradahooda maaragtay aan ogaano haddii aad maaragtay markaad guriga joogtid carruurtaada aad kula hadashid luqadda Soomaaliga ama luqado kaleba waad soo wici kartaa telefishinka Universal nambarada aad daawanaysa shaashada TV-ga idinkoo fikradihiina kala duwan maaragtay soo gudbin kara maxamed aan ku soo laabto adoo sii waday arintii haddaba marka carruurta sidee marka wax loogu sheegi karaa ma loogu sheega dhaqamadooda ay u ceshan karaan maanta ay luqadooda Soomaaliyeed ugu maaragtay hadli karaan hadda waxa kale muhiim ah wadankan laftirkiisa inuu joogno pressure badan baa saaran moogtay mujtamaceeni markaynu ku hadlayno kaasina in la qiraahdo waa muhiim wixii kaliya kama bixi karno marka haddii loo doonayo daraasado badan aad waa looga sameeyo oo waxaan inagoo kaliya hore inoogu soo dhicin mujtamacyadii kale badnaa ee naga soo horeeyayba hore ugu soo dhaceeno hindida sidaas la eg bay ahayd dadkii de wadankan inooga soo horeeyayba arrinkan uu soo saameeyay marka haddii la doonayo in laga baxo waa in iskuuladana lala kaashado waayo arrinkani waa lagama maarmayo in carruurtii af Soomaaliga loo dhigo iskuuladii loogu dhigo uu waxaan oran jirnay part of the curriculum uu ka noqdo arrinkan ololeyn badan baa baryahan ka jiro waxa la doonayaa in lagu soo daro Soomaaliga imika hindidu dhowr af bay ku hadashaa Urdugi baa jiro Gujarati wax la yiraahdaa jiro waxay system kan education curriculum education British education ayuu ka mid yahay Soomaaliga kuma jiro marka haddii la doonayo si serious ah oo ma ogta arrinka wax looga qabto waa in loo bilaabo carruurta qoraalkiisii fahankiisii gabayadii oo inagu laftirkeena haybada Ilaahay nagu siiyay leenahay marka laftirkeed waxyaalo badan faa'iido badan baa inaga inooga soo kordhayso dhaqankii baa ku xidhan oo Abuukar baa sidiisa asagaba waxaad ka shaqeysaa iskool aad weyn oo maaragtay carruur aad u badan ay dhigtaan ilaa iskoolka waxaan filayaa 300 oo carruur Soomaaliyeed dhigtaan maxaad adiga haddii aad macallimiinta Soomaaliyeed ay carruurtooda ayaga maxay sabab ay intay u tagaan iskoolka ay ugu sheegi waayeen yiraahdaan carruurteena waxaan rabnaa inay Soomaali noo bartaan oo fasalla aan siisaano aad carruurta Soomaali ugu bartaan ma awoodi weysan inaad sameysaan macallin ahaan runtii horta waxa tahay employee iskoolka ka shaqeeya ayaa tahay ama shaqaale ahaanba iskoolka jooga باوركو wuxuu ku jiraa waa waalidka iskuulka waxaan facilitate garaynay oo aan soo diyaarinay waalidkii intaan u yeernay iskuulka maamulkiisii inaan isu keenay waalidkiina aan niri codkiina waa aad u muhiim yahay iskuul governors ka mid noqda ku yeesha inaad cod ku yeelataan iskuulka sidii loo maamuli lahaa codsigiina table-ka soo dhiga waxyaalaha aad jeceshiin 5 sano soo socota in iskuulka lagu soo kordhiyo runtii arrin ka mid ah arrintaas aad iyo aad bayna u soo noqnoqotay waxaana insha Allah talada ay ku jirtaa in GCSE-ga aan lagu dari doono sida Maxamed buu ka dhawaajiyay af Soomaali xaafadaha qaarkood kamdhan way ka dhacday baan u maleynayaa annaguna similar maadaama ay tahay xaafadatan Brent dad badan oo Soomaali ay degan yihiin waxaan isku daynaa inaanu bushkarayno oo aanu ku riixino ilaa intii xad ah in Soomaaliga sidoo kale lagu soo daro